kusoo dhawaad muuqaalka maanta waxaan qaadan doonaa qaabka loo sameeyo Facebook cover design adigoo isticmaalaya Adobe Illustrator. magacaygu waa Abdulfataax Maxamuud, channelka daawanaysa usul graphics. fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar, la wadaag asxaabtaada siina share garay. haddii aan casharka iska bilaabno, marka sidaa soo furtaa Adobe Illustrator, halkaas waxaad ku qoranaysaa magaca Facebook cover design. ayaan ku qoranayaa anigu Facebook cover design. Facebook cover design marka halka ku qorato waxaad u baahan tahay hadaba size-kiina halkan geliso. marka waxaan sameynayaa halkan waxaan gelinayaa 820 halkaasaan gelinayaa width 820 halkan waxaan gelinayaa 360 baan gelinayaa halkan waxaan gelinayaa 360 marka halkaas 360 geliyo waxaan hadaba oranayaa create baa leeyahay. marka wuxuu soo saarayaa size-ka. marka size-kiisa ay soo saaro waxaan u baahanahay hadaba intaanan design-ka bilaabin inaan kala fahmo. marka aan ka hor ka sameynayo Facebook waxa laga soo geli karaa computer iyo mobile. marka way kala duwan yihiin coverradu marka muxuu ahaay Facebook marka laga soo galo mobile iyo marka laga soo galo computer. marka waxaan u baahanahay inaan koonaha ka soo kacno 90 pixel inaan ka soo kacno ayaan u baahanahay. koonahana inaan ka soo kacno 90 pixel oo kale ayaan u baahanahay. aan topka xagga sarena inaan ka soo kacno 24 pixel ayaan u baahanahay. xagga hoosena inaan 24 pixel ka soo kacno. markaan isla fahno waxaan sameynaynaa hadaba dhinacaana 90 si aan uga soo kaco dhinacaana 90 waxaan sameynayaa inaan muxuu ahaayay aan isku soo xisaabsado. hadaba haddii aad computerka isticmaalayso waxaad tegi kartaa intaad halkan search inta tagto ayaa waxaad ku qori kartaa calculator. marka halka ku qorato calculator-kaaga la soo baxa kadib waxaad sameysaa halkan dhererkan wuxuu ku ahaa dhererkaasi 820 xaggana waxay ku ahayd 360 ayay ku ahayd. sidaa kala xasuusnow. kadib waxaad sameynaysaa markaad calculator-kaaga saa u tagto waxaad leedahay labadii 90 aad isu geyso. horta 90 loo geeyay 90 baad leedahay wuxuu ku soo saaray 180. hadaba waxaad leedahay iska masax waxaad leedahay 820 laga jaray 180 wuxuu ku soo saari doonaa 640. marka waxaad u baahan tahay circle dherer waxaad u baahan tahay rectangular dhererkeedu yahay 640. hadaba halkan waan ku qoranayaa 640 si aanu iiga lumin muxuu ahaay cabirku 640 baan halka ku qoranay. 640 marka halka ku qorto haddana waxaan ku noqonayaa calculator-kaygii oo waxaan markii hore ku sheegay haddii aad casharka la socotay halka in 24 laga soo kacayo xagga hoosena 24. marka waxaan sameynayaa inaan 24 ka soo kaco labada dhinac ayaan sameynayaa. markaan iska saaro kuwan waxaan tagayaa calculator-kaygii. marka isagana sidii kii hore kale waxaan sameynayaa 24 loo geeyay 24 wuxuu soo saaray 48. hadaba waxaan u baahanahay xaggan waxa ay ahayd 360 bay ahayd. waxaan u baahanahay 360 laga jaray 48 qiimaha ay soo baxay inaan eegto 312 pixel baa soo baxay. hadaba waxaan u baahanahay circle uu height-keedu yahay 312 muxuu ahaay width-keeduna uu yahay 640 ayaan u baahanahay. marka waxaan sameynayaa hadaba halkan ma ku dhufanayaa marka saa rectangular-ka u doorato hajiidin saaha odhan hajiidin saa markaad soo doorato meesha bannaan ayaad click ku leedahay. click marka ku jira wuxuu ku soo saaraya meel aad cabirka gashato height-kii iyo width-kii. hadaba width-keenu wuxuu ahaa haddii aan saa u masaxo 640 buu ahaa. markii aan ka jarnay labadii 90aad 640 baa inoo soo hadhay. height-keenu wuxuu ahaa 312 markii aan ka jarnay intii laga kacay markii aan ka jarnay. hadaba okay baan leeyahay. waxa ay soo saaray rectangular-kii. hadaba rectangular-kii si aan dhexda ugu beego dhexdii baa loo baahan yahay in lagu beego waan select gareynayaa. kadib halkan align-kan tagayaa halka waxa ku qoran horizontal align center waxa weeyaan qaab chief ah dhexda ugu beeg. okay baan leeyahay dhexdii geynaya. haddana qaybtan kale aan tagayaa waxa ku qoran vertical align center qaab dherer ahaana document-ka dhexda u geey. saasaan leeyahay waxa imika bartankii bay noo taala. xaggana 90 pixel baa bannaan xaggana 90 pixel waxa bannaan 24 pixel xaggana 24 pixel. xaggana waxa noo bannaan 90 xaggana 90 baa noo bannaan. waa inta marka computer-ka qofku ka soo galo size-ka gudihiisu wuu muuqanayaa. laakiin haddii uu qofku mobile ka soo galo Facebook page-kaagii oo mobile ka soo booqdo kaliya waxa uu muuqanaya muxuu ahaay waxa uu muuqanaya
haddii aan ku tuso intaas waxa u muuqanaysa blaaga ee rectangle ku yaalo. marka si aanay muxuu ahaayey kaaga kala qarsoomin macluumaadkii maadaama oo dadka badankoodu ay kasoo booqanayaan muxuu ahaayey lagaa soo booqanayo mobile, waxaa u baahan tahay inaan macluumaadku kaa kala lumin. marka waxaad samaynaysaa inaad intan macluumaadka ku fadhiisiiso, intaana aad sawir iska gashato oo aanay kaa banaanaanin si aanu kaaga foolxumaanin kofarkuna haddii qofma uu laabtoon ka soo booqdo si aanu sawirkii wax foolxun kaaga noqonin. waxaa u baahan tahay halkana inaad qurxiso oo sawiryada lafteeda geliso, laakiin muhiimadda iyo muxuu ahaayey waxyaabaha muhiimka ah ee informationka ah ee muxuu ahaayey aad u baahan tahay qofku markuu facebookkaaga soo booqdo inuu arko, waxaad u baahan tahay inaad halkan dhigto midow aad dhexdeeda dhigto. marka haddaba si aanu kan inooga dhaqdhaqaaqin waan select garaynayaa, kadib waxaan tegayaa object, kadib lock baan leeyahay, kadib selection baan dooranaya. markaan intaa doorto kadib waxaan samaynayaa inaan haddaba isticmaalo aan muxuu ahaayey bilaabo inaan soo gashado wixii aan u baahnaa. waxaan samaynayaa horta aan ku tuso coverka aan samaynayno. coverka aan samaynayna waa kan, waa ka Facebook coverka sulub yaala. marka waxaan doonayaa inaan sameeyo kan aan xagga u hooseysa kasoo bilaabo. marka horeysa waxaan u baahanahay seerka shaasi stroke inaan sameeyo, kadib aan qoraalkan qoro, kadib aan social media soo geliyo, buttonkaas sameeyo, stay connected, adigu macluumaadka halka ku yaala gebigiisaba inaan soo geliyo. okay kaygii baan ku noqonaya. haddaba waxaan samaynayaa halkan baan tegayaa, kadib right click baan leeyahay, ilibis baa dooranaya, shift baa qabanayaa, saasaan weyniinaya. markaan saa u weyniiyo kadib waxaan samaynayaa oo selection kayga ku noqonaya, saasaan u durkinaya. markaan saa yara durkiyo kadib waxaan samaynayaa intaan select gareeyo ayaa waxaan tegayaa edit, kadib copy baan leeyahay, haddana edit baan ku noqonayaa, waxaan dooranayaa best in front. kadib markaan best in front doorto waxaan samaynayaa shift iyo altaan qabanayaa, kadib in yar baan saa u yar weyniinaya. markaan saa u yar weyniiyo ayaa waxaan samaynayaa xaggan baan tegayaa, stroke baan u roganaya, aad baan ugu yar weyniiyey. waxaan samaynayaa in yar inaan soo yar celiyo, shift iyo altaa qabanaysaa, kadib in yar baa saa u soo yar celinaysaa, intaasaad ku daynaysaa. kadib waxaan samaynayaa inaan macluumaadkii kala soo gashado. hadda waxaan u baahanahay rectangle kan aan loo gareeyey ee xagga dambe inuu yaala, si wixii aan qorayo aanan arki waayin waxaan u baahanahay inaan opacity-giisana iska dhimo muxuu ahaa. marka waxaan dooranayaa object baan tegayaa, unlock baan leeyahay all wii aan loo garaynayaa, isagaan dooranayaa. waxaan samaynayaa opacity-gan halka ka yaraynaya properties-ka, waxaan ka dhiganayaa in yaroo khafiifa oo aan arki karo inaan gudbay guideline-kii in kale si aanan xadkan ooga bixin. intaasaan ku daynaya. kadib waxaan tegayaa object, lock baa leeyahay, selection baa dooranaya. iminka wax walba waan arkaa waan qabanayo, waanan arkaa intii loo baahnaa inaan wax dhigo. sawirka waxaan halkaa u geeyey oo aan intaa u dhaafiyey xagga, waayo waa sawir macluumaad saasana laga gudbinaya, intiisii badnaydna waa la arkaya, laakiin macluumaadka intii kale aan halkan gashanaya. waxaan soo qaadanayaa text baan soo qaadanayaa, qoraalkii baan qoranaya. haddaba waxaan qorayaa ku baro xaggaasna waxaan ku qoranayaa graphic design. marka halkaa ku qoro ayaa waxaan qorayaa haddana horta intaasaan weyniisanayaa, saasaan u qabanayaa, shift baan la qabanaya, saasaan usoo weyniinaya, halkaasaan dhigayaa. marka halkaa dhigo kadib waxaan samaynaya inaan farta bedelo, halkan baan tegayaa, goofan baan ka dhiganayaa farta, saasaan u dooranayaa, check baan leeyahay, kadib saasaan yar durkinayaa, xaggaasaan yar durkinaya, xoogaa liidkan ku dhaweynaya, halkaasaan ku daynaya. kadib waxaan samaynayaa inaan in yar yareeyo, in yar baa saa u yar yaraynaya, kadib in yar baa kor u qaadaya. waxaan samaynaya hadda waxay hadhay inaan qoraalkii kala qorto, altaan qabanaya, kadib hoos baan u jiidaya, wii kala koobiyeenaya, altada iyo click-tana waxaad sii hordeynaysaa, maxaa mouse-kaad sii hordeynaysaa. kadib all baa control eeda tabanaya, u wada select garaynaya, waan iska saaraya. kadib waxaan qoranayaa qaab bilaash ah, ayaan qorayaa qaab bilaash ah oo booqo channelkeena. intaasaan ku qorayaa. kadib waxaan samaynayaa inaan muxuu ahaayey aan select gareeyo, kadib aan yareeyo, farta saa u yareeyo, aan halkaa dhigo. waxaa laga yaabaa inaan qoraalka wax ka tegey, halkan baan tegayaa, waxaan qoray bilaash oo booqo channelkeena sulub graphics. markaan qoro bilaash ah oo booqo, fartan saa u yareynaya oo booqo ayaan waxaan leeyahay, halkaas channelkeena saa u celinayaa, saasaan leeyahay. kadib waxaan qorayaa intaa keenada waan ka reebaya, waxaan samaynayaa inaan intaas ka reebo, channelka baan ku daynayaa. kadib saasaan in yar durkinayaa, waxaan samaynayaa tan sare inaan yara waaweyneeyo, shift baan qabanaya, in yar baa saa u yar weyneynaya. kadib waxaan samaynayaa inaan kana in yar hoos u dhigo. kadib waxaan samaynayaa double click baa leeyahay si uu ku dhex galo, halkaas u damaystaan tegayaa, enter baan leeyahay,
sulub graphics waan halkaa ku qoranaya channelka magaciisa waan halkaa ku qoranayaa sulub graphics marka halkaa ku qorto kadib waxaan sameynayaa inaan check idhaahdo iskaga baxo kadib waxaa hadhay inaan sameeyo haddaba arawiyadaasina ayaa ii hadhay inaan sameeyo xaggan baa kusoo noqonaya waxaan sameynayaa marka hore pen tool baan dooranayaa kadib waxaan sameynayaa arrowga marka hore afkiisa halkaasaan click leeyahay kadib haddana halkaasaan click leeyahay halkii hore aan ku celinaya okay baa leeyahay oo kaas arrowga afkiisii hore wii samaysan yahay waxaan sameynayaa inaan saa wareejiyo kadib markaan saa aan muxuu ahaaye halkii saxda ayd geeyo check baa leeyahay kadib halkaasaa soo dhigayaa waxaan samayn karaa inaan haddii aad aragto inuu kaayara uu saa dherarkaa kaaga yar dheeraaday waxaad tegi kartaa halkaas selection ay ku qoran tahay direct selection kan baad dooranaysaa kadib waxaad dooranaysaa anchor points-ka hore kadib in yar baa saa u yar durkinaysaa waxaad samaynaysaa anchor points-kan ayaad dooranaysaa in yar baa kor u celinaysaa haddana kaa kale aad dooranaysaa in yar baa hoos soo celinaysaa kadib halkaas intaasaan ku deynayaa waxaan sameynaya inaan saa usoo hordurkiyo kadib aan shift qabto in yar yaro yareeyo aadna usi yarayn intaasaan ku deynayaa saasaan ugu beegayaa kadib waxaa hadhay inaan sameeyo haddaba muxuu ahaaye inaan samaysto arrowga intii dambe ay hadhay pen toolkaygii baan tegayaa halkaas baan click leeyahay halkaasaan ka bilaabayaa shift baan qabanaya click baa leeyahay kor baa u jiidaya halkaasaa click leeyahay haddana halkaasaa click leeyahay kadib waxaad sameynaya facebook ugu rogaya waxaad sameynaysaa stroke baa ka dhiganaysaa check baa iska leedahay kadib waxaa hadhay inaan sameeyo muxuu ahaaye intaasoo keliya ma waxaa hadhay inaan sameeyo muxuu ahaa kii hoosena inaan sameeyo hadhay marka waxaan sameynayaa kan baan soo qaadanayaa arrowga intiisa hore altaan qabanayaa waxaan sameynayaa inaan soo copy gareeyo halkan soo dhigo kadib waxaan sameynayaa inaan right click idhaahdo transform kadib aan reflect idhaahdo okay baa leeyahay kadib in yar baan saa odhanayaa haddii aan xaggan ku noqono arrowga xaggaas u jeedaa kadib waxaan sameynaya inaan halkan hoos dhigo halkaasaan hoos dhigayaa kadib waxaan sameynayaa pen toolkayga baan tegayaa halkaasaan kasoo bilaabaya kanna shift baan qabanaya click baa leeyahay haddana halkaasaan qabanaya click baa leeyahay halkaasaan dhigaya click baa leeyahay kadib isagana stroke baa roganaya check baa leeyahay kadib kan baan in yar hoos soo yar dhigayaa kadib in yar baan dib u celinaya markaad intaa qabato waxa ii hadho keliya inaan soo geliyo lineka hoosena aan soo geliyo kadib waxaan tegayaa pen toolkaygii halkaasaan click ku leeyahay shift baan qabanaya halkaasaan click ku leeyahay click baa leeyahay haddana halkaasaan click ku leeyahay kadib waxaan sameynaya inay isagana stroke rogto aan check idhaahdo kadib aan yar hoos u dhigayaa intaasaan ku deynaya kadib waxaa hadhay inaan halkan bottonkii soo geliyo waxaan dooranaya halkaas round rectangularkaasa soo qaadanaya saasaan leeyahay saasaan odhanaya kadib waxaan roganayaa color fill ah kadib saasaan odhanaya waxaan sameynaya inaan kan soo qaato aan double click idhaahdo control A baa leeyahay kadib waxaan odhanayaa hadda booqo kadib waxaan sameynaya check baa leeyahay kadib shift baan qabanaya in yar baa yaraynaya saasaan halkaasaan geynayaa in yar baan yaroweyneynaya saasaan odhanaya halkaasaan dhigaya kadib in yar baan kor u durkinaya kadib waxay hadhay inaan haddaba softwareadii halkan soo geliyay social media waxaan sameynaya saasaan odhanaya social media halkan buu yaalaa waxaan odhan karaa saasaan soo select garaynaya kadib saasaan soo qaadanaya halkan baan keensanayaa shift baan qabanayaa saasaan u yaraynayaa halkan baan dhigayaa marka in yar baan yaro weyneysanayaa kadib saasaan yar durkinayaa in yar hoos u dhig halkaasaan ku deynaya waxay hadhay haddaba inaan sameeyo muxuu ahaayey qoraalada wax yar baa iga dhiman halkaasaan stay connected ku qorayaa bottonkan baan saa odhanayaa in yar baan saa yar durkinayaa kadib waxaan sameynaya inaan halkaa ku qoro stay connected qoraalkan baan kasoo qaadanaya qoraalka halkaa qabanaya kadib halkan baan keensanaya waan sii deynaya waxaan sameynaya in halkaa ku qoro stay connected kadib check baa leeyahay in yar baa hoos yar dhigayaa in yar markaa hoos dhigo halkaasaan ku deynayaa
kadib waxay hadhay kan baan halkiisa ku soo celinayaa waxaan sameynayaa inaan select gareeyo kan kadib aan right click idhaahdo aan arrange tago kadib bring font waxa weeyaan marka laba shay ka kala sareeyaan qoraalkii imika ka hooseeyo aad doonaysa inaad qoraalka xagga sare soo mariso halkii photoshopka leerada la kala sareysiin jiray kan halkaas tagaysa right click baa leedahay arrange baa tagaysa kadib bring font baa leedahay okay aan leeyahay imika qoraalka ay soo sareeya halkaasaan geynayaa haddii aan iyar intaan halkaa dhexda ku beego qoraalka aan colorka ka bedelo oo intaan bikar ka yatay kadib caddaan ka dhigo oo kaas halkaas ii yaalaa waxaa iga dhiman keliya inaan soo qaado softwareradina waa kuwan saasaan usoo qaadanayaa halkan baan keensanayaa kadib shift baan qabanaya saasaan u yaraynayaa haddana shift baan qabanaya saasaan u yaraynaya halkaasaan dhigayaa kadib waxaa dha inaan sameeyo inaan buttonkan ka durkiyo saa uga yar durkiyo kadib aan haddana muxuu ahaye rectangularkaas kadib aan intaan qabto alta aan saa usoo koobiyeeyo aan saa u yar jiido aan saa hoos dhigo aan haddana saa usoo yareeyo xaggana saa in yar uga soo yareeyo aan in yar saa hoos dhigo aan muxuu ahaye kadib aan halkaas intaan saa u celiyo qalooca ka biyo aan saa u yareeyo kadib aan saa u yareeyo aan saa hoos dhigo kadib waxaa dhay softwareadan in yar weyniinaya shift baan qabanaya saasaan yar weyniinaya spaceka markaa aad bay yara kala durdurugsan yihiin kan baa waxaan sameynaya intaan right click idhaahdo ayaan an group leeyahay kadib saasaan u select garaynaya kan saasaan soo ordurkinayaa kadib waxaan sameynaya kan kale haddana select garaysanaya saasaan soo ordurkinayaa markaan saa usoo durkiyo kan haddana labadooda xagga saddexdooda saa ordurkinayaa rectangle-kana saasaan soo ordurkinayaa kadib waxaan sameynayaa inaan rectangularka aan alta qabto aan xaggan u celiyo aan kadib saa usoo yareeyo waxaa hadha markaa stay connected kaasaan qoraal ka soo qaadanayaa altaan qabanayaa kadib halkan baan keenayaa double click baa leeyahay waxaan sameynaya halkaa ku qoro graphic design softwares markaa halkaa ku qoro check baa leeyahay kadib right click baa leeyahay arrange baa tegaya print font baa leeyahay kadib xagga maan keensanaya waxaan sameynaya inaan kalarkooda caddaan ka dhigto check baa leeyahay waxay hadhay haddaba maxaa sawiradii inaan soo gelgeliyo ayaa iga dhiman markaa waxaan tegayaa sawiradeedii waan soo furanayaa sawiradeedii markaan soo furto ayaa waxaan sameynayaa in maxaa kii aan seerkasha dhex gelin lahaa soo qaato kan aan doonaya inaan seerkasha dhex geliyo halkan baan keenayaa kadib shift baan qabanayaa saasaan u yaraynayaa weli waa sii yaraynayaa aad buu tayadiisa aad u sarreysay kadib aad buu weynaa saasaan leeyahay kadib seerkashaa la ekeysiinayaa markaan seerkasha saa u la ekeysiiyo waxaan sameynayaa right click baa leeyahay kadib arrange baa tegayaa send back baa leeyahay xagga u dambeysaan u dirayaa kadib seerkashaan dooranayaa waxaan tegayaa object kadib waxaan tegayaa compound path make baa leeyahay path baa layga dhigayaa kadib kan baan select garaynaya circle-ka shift baan qabanaya haddana sawirkaan select garaynaya right click baa leeyahay create make clipping mask baan leeyahay marka waa lagu dhex gelinaya marka sidaa laygu dhex geliyo waxaan sameynaya haddana inaan doonto sawirkii aan xagga backgroundka dambe soo gelinayay kadib kan baan soo qaadanayaa facebookka farqigii baan keenayaa halkan baan dhigayaa kadib saasaan usoo durkinayaa shift baan qabanayaa waan yaraynayaa ilaa aan kala ekeysiinaya artboardka oo saasaan u yaraynayaa kolba shift baanan la qabanayaa si aanu hareeraha iiga xumaanin oona iiga kala dhaqaaqin oona muxuu ahaa iminka haddaad shift qaban weydo saas kaa noqonaya kaa fool xumaanaya marka waxaa u baahantay markaad yaraynaysa inaad shift qabato oo kaas kadib waxaan sameynaya isagana right click baa leeyahay kadib arrange baan tegayaa send back baa leeyahay xagga u dambeysaan geynaya kadib waxaan sameynaya haddaba maadaama artboardkii ku yahay waan jarayaa isagaan dooranayaa crop image baa leeyahay kadib waxaan sameynayaa inta artboardkaygu yahay oo keliya inaan select garaysto saas usoo yaray xaggaas kadib haddana saa u durkii halkaas geey xaggana saa usoo yaray hoose kadib waxaan leeyahay apply markaa intii kalaa layga jaray haddaba waxaan sameynayaa seerkashii aan loo gareeyey intaan tago object kadib ayaan unlock leeyahay
waxaan samaynayaa imika waxaan wada leekeysanayaa artboardkayga si aan iyadana uga dhigo mid aan kalarka muxuu ahaay aan ku shubto kalarkii backgroundka sawirkuna uu ka yara dhex muuqdo. kadib artboardkayga leekeysanayaa markaan saa u leekeysiiyo ayaa waxaan samaynayaa waxaan tegayaa halkan waxaan soo qaadanaya horta kalaradii labadan kalar baa soo qaadanaya halkan baa imaanaya halkan baan dhiganaya kadib waxaan dooranaya rectangularkaygii kalar bikarkaasaan tegayaa kaasaan dooranaya kaa markaan ka dhigto waxaan tegayaa intaan isaga doorto aan propertieska tago color opacityga tegaya meelahaas 6:30 baan ka dhigaya in yar yara cel control baan ku diinaya kadib waxaan sameynaya haddaba ku baradaas inaan ka dhigto orange aan kalarkaas ka dhigto kadib haddana graphic design aan doorto aan ka dhigto cadaan sug aan kalar cad soo dhigto waxaan sameynaya inaan muxuu rectangular soo qaato kadib aan muxuu ahaayey kalar cad ku shubto si aan meelahan cadaanka doonaya inaan ka dhigo aan uga soo doorto halkaasaan dooranaya okay baa leeyahay kadib waxaan sameynaya haddaba inaan graphic design select gareeyo intaa 2 jeer saa u click gareeyo aan saa u select gareeyo kadib aan doorto kalar bikarkayga aan cadaan ka dhigto cadaan markaa intaa ka dhigto haddana waxaan sameynaya inaan muxuu ahaayey qoraalka hoose oo select oo yiraahdo kadib aan cadaan ka wada dhigto marka cadaan ka wada dhigto ayaa waxaan sameynaya meelaha muhiimka ah baan doonayaa inaan muxuu ahaayey highlight gareeyo saa markaan u doorto kalar bikarkayga intiga orange baan ka dhiganayaa haddana waxaan tegayaa ama waxaan sameyn karaa inaan control A yiraahdo kadib aan orange ka wada dhigto gebigeeda orange intaan saa uga wada dhigto kadib ayaa waxaan sameynaya meelaha muhiimka ah ayaan cadaan ka dhiganayaa main pointska meelaha aan doonaya in la arko ayaan doonaya inaan cadaan ka dhigto halkaas kadib waxaan sameynayaa waxa ay hadhay inaan muxuu ahaayey kalarka ka bedelo aarowgaasaan dooranayaa orange baan ka dhiganayaa kadib stroke baan u celinayaa labaan ka dhigayaa strokegiisa kadib haddana waxaan dooranayaa kan waxaan sameynaya inaan kalar bikarkayga tago aan orange ka dhigto isagana aan halkaa ku dayo haddana kanaan dooranayaa kadib halkan baan tegayaa kalar bikarkayga orange baan dooranayaa waxaan sameynaya inaan stroke ku rogo kadib strokena 2 ka dhigo haddana waxaan tegayaa halka aarowga afka hore orange baan ka dhiganaya isagana marka intaas sameeyo waxa ay hadhay haddana inaan kan bedelo maxaa rectangularka rindka orange baan ka dhiganayaa kan kalaan dooranaya haddana orange baan ka dhiganaya isagana okay waa leeyahay haddana waxaan sameynaya social media ay hadhay hadda waxaan u baahanahay horta kan inaan muxuu ahaayey ka dhigto orange ka dhigto cadaan baan ka dhiganayaa kadib strokegiisa rogayaa labaan ka dhiganaya kadib hadda waxaan doonaya inaan sameeyo inaan social media haas bedelo waxaan sameynaya haddaba zoom inaan idhaahdo soo dhaweysto markaan saa u soo dhaweysto ayaa waxaan sameynaya kan baan dooranayaa ungroup baan leeyahay ungroup markaan idhaahdo haddana kanaan dooranaya kan baan isagana waxaan sameynaya inaan intan sarena cadaan ka dhigo intaas sarena cadaan ka dhigaya kadib waxaan sameynaya halkaa dhexdan orange ka dhiganaya orange saa uga dhiganaya kadib waxaan sameynaya social media ayagoo dhan baa nooca ka dhigaya social media ayagoo dhan baa nooca ka dhigaya iconada dhan baa nooca ka dhigaya ayaan muxuu ahaayey kalarka orange ka wada siinaya waxaan sameynaya iconskaygo dhan baan kalarkaa siinaya kanna dhibac orange baa ka dhigaya haddana waxaan sameynaya seerka shaayar baa imanaya seerka shamaa inta yare dhexda kadib orange baan ka dhiganaya hadda waxaan sameynaya inta madowna inaan cadaan ka dhigo inta yare madow aan cadaan ka dhiganaya haddana waxaan sameynaya kaa dhexda imanaya kaa dhexdana cadaan baan ka dhigaya marka intaas sameeyo haddana waxaan sameynaya facebooka qaybta sare inaan cadaan ka dhigo kadib aan efta aan ka dhigo maxaa orange inaan efta orange ka dhigto haddana waxaan tegaya youtube-ka waxaan sameynaya qaybta sare cadaan baan ka dhiganaya intaasna huruud baan ka dhigaya orange kadib haddana waxaan dooranayaa qaybta yare madow ee dhexda qaybta yare baan dooranayaa kalar bikarkayga tegaya orange baan ka dhigaya waxaan ka dhigaya cadaan baan ujeedaa okay waa leeyahay kadib waxaan sameynaya stay connected baan dooranaya kalar bikarkayga tegaya cadaan baan ka dhiganaya marka intaas sameeyo kadib waxaan sameynaya haddaba inaan in yar saa isaga yar dulkiyo waxaan sameynaya strokegeyga inaan marka hore aan softwarada stroke samaysto kadib strokegoodi baan cadaan ka dhigaya cadaan markaan ka dhigo ayaan saa yar kordhinaya labaan ka dhigaya check baa leeyahay haddana kanaan dooranayaa waxaan sameynaya stroke inaan imaado cadaan ka dhigto kadib aan 2 ka dhigo
haddana kan kale aan tago aan stroke siiyo haddaan ka dhigo strogiisa aan laba uga dhigo si uu background uga dhex muuqdo haddii aan iska durto imka aan saa zoom out iskaga idhaahdo kadib aan koonayaashooda la ekeysiiyo imika markaa saas qofka noogu samaysan yahay waxaa helay strogaas inaan caddaan ka dhigo si uu uga muuqdo meesha caddaan baan ka dhigayaa okay baa leeyahay kadib waxaan samaynayaa inaan yaro kordhiyo stroga aan laba ka dhigo oo kale kadib waxaan samaynayaa inaan kan aan muxuu ahaayey aan saa u yaro kordhiyo in yar opacity kor u qaado si aanu aad ugu muuqanin kaasi 760 kaasaan ku deenayaa imika kufurkeeni saas inuu ugu samaysan yahay fadlan haddaad channel ku cusub tahay subscribe saar la wadaaga asxaabtaada shiina share garaa casharka haddii aad wax faallahayso commentiga noogu weer haddii aad su-aal qabtana waxay igu soo diidi doontaa telegramka aan hoos dhigay إن شاء الله تعالى عشرة xiga والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.